waxaan uga mahad celinayaa beesha caalamka runtii muddadii dheereed ee dalka Soomaaliyeed garab taagnayd waxaan ka raali gelinayaa khaladaadka dadka Soomaaliyeed ay mararka qaarkood galayaan oo keeni kara niyad jabka kuna abuuri kara dhaqaalihii faraha badnaa ee dalka ku bixinayeen in uu ku keeno niyad jab waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay bedesho aragtideeda siyaasadeed dadka Soomaaliyeed marxaladda uu marayo wili wuxuu ku jiraa geedi socod siyaasadeed inay kaligood isku dayn oo markay wax dhacaan aysan ka daba tagin waxaan ka codsanaynaa in ay kaalin mugle ka qaadato sidii dalkan looga saari lahaa marxaladan aysan ku sii dayn madax Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan u yimaado mararka qaarkood in ay waxay doonaan sameeyaan waxaan uga mahad celinayaa dawladda Mareykanka iyo EU-da qoraalladii ay soo saareen waxaan ku boorinayaa dawladaha kale ee dalka taageera inay mawaaqif cad ka yeeshaan dalkan hantidii gashay oo caalamka ee ka gashay inaysan khasaarin Soomaaliya oo ku taal geeska Afrika oo ah juqraafiyan meel aad muhiim ugu ah amniga iyo deganaanshaha qaaradda Afrika iyo adduunkaba in gacan weyn laga geysto sidii dalkan loo xasilin lahaa amnigiisa looga shaqeyn lahaa wixii la soo qabtayna ay dib u noqon lahayn marka waxaan rajaynayaa Soomaalida iyo beesha caalamkaba inay ahmiyadii hore la siin jiray mid ka weyn siiso golaha wasiiradu runtii wuxuu bogaadiyay taageerada beesha caalamku had iyo jeer ay la garab taagan tahay dawladda Soomaaliyeed siyaasad leh horumarin leh dhaqaale leh amni leh ayaa golahu aad iyo aad u bogaadiyay haddana dhinaca kale waxay golaha wasiiradu ka codsadeen diplomatic missionska iyo dawladaha aanu saaxiibka nahay inay ixtiraamaan madax banaanida iyo dastuurka iyo go'aamada hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda inay ixtiraamaan wixii tala ah ay hayaan u hayaan horumarinta iyo adkeynta nidaamka dawliga ah ee Soomaaliyeed na inay u maraan janaalka diblomaasiyadda ay u maraan